xaafadda maxalliga ee waddankaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimo dhowr ah oo imika ka taagan waddankiisa. waxyaabaha rasaaraha uu ka hadlay waxaa ka mid ah wax laga yeelayo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar oo imika la sheegay inuu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa iyo wararka sheegaya in rasaare Abiy Ahmed uu dhiig kaga furmay maskaxda. haddaba nuxurka hadalladiisa ayaan goorsii horreysay wax ka weydiiyey wariyaha BBC Cabdinaasir Xikam oo imika ku sugan isla magaalada Addis Ababa. waxyaabaha ugu muhiimsan ee deegaanka uga hadlay waxaa ka mid ah ururada hubaysan ee gubasha nabadeed loo fidiyey in ay weli hubkiisii haystaan. taasna wuxuu ka jawaabay in hubka laga dhigi doono laana loo aasaasi doono arrimahaas kala shaqayn doonta. marka wuxuu yidhi waxaa wanaagsan inay ku dagaalamaan qalinka iyo fikirka. haddii ay haystaan buuri hubkoodii gubasha nabadeed waxba ma taraysa buuri. marka Cabdi Maxamed Cumar iyo mustaqbalkiisa wax laga weydiiyey wuxuuna yidhi taas sharciga ayay u taallaa waxay cadaalad ka tidhaahdo waana way sugaynaa goorta la geyn doono iyo wuxuu mudan doono labadaba cadaaladda ka sugaynaa buu yidhi isaga iyo weliba mas-uuliyiintii dhibaatada iyo dembiga kula jirtay. arrin kaloo la weydiiyey baa jirtay oo 4 bilood ee xilka hayay in sax iyo barakac badan waddanka Itoobiya uu ku yimid. taana wuxuu yidhi arrin iga horreysay bay ahayd laakiin hadda waxaan u xilsaarnay buu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka waddanka Itoobiya Dhamaqa Mukanan guddi uu madaxu yahay in xaaladaha ay dejiyaan. wuxuuna yidhi xadadka waddanka Itoobiya uu la leeyahay wadamada kale wax dhibaatada kama jirto laakiin maamulada xadadkooda ayay dhibaato ka jirtaa buu yidhi. marka arrimahaas ayaa xagga deegaanka ugu waaweynaa. Cabdinaasir waxaa kaloo jirta in rasaaraha wax laga weydiiyey inuu baalmaray siyaasadda uu ku shaqeeyo xisbiga uu ka tirsan yahay ee APRDF iyo weliba inuu damacsan yahay in luqadda oromada uu ka dhigo luqadda rasmiga ee waddanka Itoobiya lagaga hadlo. marka arrimahaasi muxuu ka yidhi? xisbiga BRDF markii wax laga weydiiyey wuxuu yidhi maanaan baalmarin xisbiga BRDF siyaasadihiisii caadiga ah ayaan ku shaqaynaa. afka oromada wuxuu yidhi adduunka waxaa jira dowlado badan oo luqado badan oo maxalli ah haddana ay international u yihiin. marka wuxuu yidhi inaynu afka Soomaaliga ka Tigreega ka Axmaalada iyo ka Oromadaba aynu ka dhigno afafka ugu waaweyn ee Itoobiya laga hadlo wax dhibaato ay naguma keenaysa buu yidhi. waxaa la rabaa jiil afaf badan barta laakiin afkaasaa laga dhigay wax muhiima male buu yidhi. waddankan Eritrea dariskeena shalay naga go-ay laba af oo afka Tigreega iyo afka Carabiga ayaa waa buu yidhi afafka caalamiga ugu jira buu yidhi. marka taasna waxaa saas kaga baxay. waxaa kaloo la weydiiyey Bashiir oo hadal maalmahan laisla dhexwaday magaalada oo ahayd in Dr. Abiy Ahmed uu maskaxda dhig kaga furmay markii uu Mareykanka joogay. taas wuxuu yidhi anigu magahii buu yidhi dadka xataa dhakhtarka iyo farmasiyaasha iyo wax kasoo gatay dawada dadka isticmaalamihii buu yidhi waxaan aaminsanahay buu yidhi jimicsi iyo sports baan aaminsanahay buu yidhi dawana maba gatay buu yidhi. taasna saasuu kaga jawaabay. ugu dambeyntii marka Cabdinaasir waxaa kaloo jirta in baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya la isugu yeeray oo dib loo furayo. marka maxaynu ka ognahay ajendayaasha looga hadlayay waxyaabaha hor yaala? habeen hore ayaa fariimo loo diray baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida xubnaha ka tirsan laakiin ajendaha laga hadlayo fadhigoodan oon caadi ahayn isla markaana ah kii ugu horreeyay inta qalalaasadu dhacday ee dhibaatadooda jidka ka dhacday kii ugu horreeyay ahaa wax lagaga hadli doono iyaga laftoodu ma garanayaan. laakiin waxaa loo malaynayaa in kala fadhigan kalsoonida madaxweynaha baarlamaanka uu ku madaxweyne ku-meel gaar oo rasmi u noqdo taasaa la filaya. laakiin waxa dad badan oo xildhibaanada ka mid ah oo la hadlay waxay sheegeen in maanta laga yaabo inay noqoto uun isxaadirin iyo maadaama la kala qaxay ama sabab bar badan ay joogaan baarlamaanka in la xaadiriyo oo lasu yimaado ribaasa laga yaabaa inuu furmo shirka rasmiga ee laga yaabay in madaxweynaha kalsoonida lagu siiyo. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam wariyaha inooga soo warrama dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa.